قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الور وين challenge كوانك مسلم كهايستا مانت وجهل بدين الدين تسوي جاهل كي إيادا الصبابتين قيسسكو بربران أنا عليه السلام يا شيخ سلامتي صدح بان كفر أي محيا لا بقورني دي waxay ahayd ilaa way ka fuqaysaa hadan mid quraba ku furtee saaga ma meeku dhagsanaysa hadu mar qura furo fuqaysaa laakiin jahliga wuxuu gaaray xad uu isleeyay iska reebay karimaysid inaad saddex sheegta mooyaane idan jahliga umada haysta qoysku waxay culimada muslimiinta tilmaamayaan mesela shan qodob bay maqaasida qoyska ku tilmaamayaan shanta qodob qodobka koowaad ee qoyska looga dalnayo waxa weeyaan waa xifdu nasab in jinsi albashari la ilaaliyo binaadamku inaanu dabar go'in maanta reer galbeed waddanno waaweyn oo ka mid ah baa dabar go'aya sii yaraanaya aqoon-yahankooda rag badan oo ka mid ah bogaaquraya ay leeyihin waanu maranaynaa ma ahayn dawladda ku soo duuleen waa inay wax dhali waayeen dumarkoodii laba sababoodba wala loolamaya gabadha haday wax ka dhasho soo ninka ka hadhimayso ninka iska celinaysa hadii wasiirnimo raadinaysa madaxweynenimo raadinaysa si ay taa u samayso waa inay soo dabsano jaamacada iyo dhowr iyo 10 sano experience soo gasha oo axzaab iyo shaqo iyo xoogsiya 40 iyo dhowr markay gaadhada ilma kala tageen laakiin waa hal nin iyaduna markaas iyo rag iska celinaysa noqoto jinsi albashari si loo ilaaliyo guur baa loo baahan yahay guur qaabkii sharciga ahaa u dhaca nin iyo gabadhii la yaqaanay ah si bulshadu deganaanshiyo xasilooni ay u hesho guur baa loo baahan yahay taxqiiq as-sakn wal mawadda wal rahma waa maqsad labaad meel qofka bini'aadamkii uu ku nasto nin iyo gabadhba qofka bini'aadamkii gurigiisa ku nastaa gurigiisu naxariis ka hela gurigiisu deganaanshiyo ka hela gurigiisa stress ku kaga hadha ولذلك ما إله إلا هو من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مقصدك مقاصد واوين أقولك وحكم ده إن لا إلاليا نصبك الترسين تدتك إليين يلمه عد حنانا يسوء كوريسوء وكحرين يكمدين لها كوي دولدو كوريين كوري وايين dunida maanta waxa la yiraahdaa child delinquency baa waaray junuux al-atfal carruurta yaryar dambiilayaasha dunida waaweyn waxaad arkaysaa xabsiyo dhan oo juvenile prisons la yiraahdo xabsiyada carruurta yaryar waa carruur yaryar oo mujrimiin noqotay wax dilayso wax boobayso maxaa keenay inta ugu badan ama guri aan jirin bay ku soo koreen ama sharci la'aan bay ku dhasheen dibadda iskaga biireen ama meelaha dawladuhu hayaan bay ku soo koreen ama wax la mid ah ولذلك النصب الليلي دراد بشريعه الاسلام زنا ممنوع دي وتبلغ عروت اللي يبسدا ما لا مغعاو ممنوع دي oo ciidada la jideeyay gabadhu ciidda tirsato oo la mamnuucay gabadhu rixibkeeda waxa ku jira inay qariso oo isbaatu nasab la sameeyay oo jahdigiisa in la dafro sharci laga dajiyay waxa soo ahkaam quraanku ka waramayo waa min ajli xifdi nasab la ilaaliyo qofku markuu meel ka tirsay uu ku faana kadaabaha garanayso hooyada garanayso ka waran nin weyn oo konton jiro kula abahay baa raadinaya yurub waa caadi oo kolba DNA meel qaadayo soconayo le waxa raadinaya cidii dhashay ma hayo waa madaxweynaha laga yaabaa ninka ana bihi garanay waa mushkila waa qof dabaqan qodobka شنات مقصد كجور كلوجا دللي وحويان الحساب إن لو دور صنابه وان سيدي بهايم تدكو يسكرين حرام هذا وبني آدم كنا نقم إنهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيل قام إلى كتلهم وإنه بني آدم مقضى ولذلك النبي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج قرقوا قدام بأي شنات كورا أفراد بهاي
qoyska loo sameeyaa waa xifdu tadayyun baan idin leeyahay wayn diinta lagu ilaaliyo oo lagu rabeeyo oo lagu koro oo u noqdo meesha dilaacisa ubadka cusub ee ummadda waayo gurigu waa meesha qudhe bulshadu ay ku kulanto raggeeda iyo labkeeda waaweynkeeda iyo yaryarkeeda iyo carruurteeda iyo dhallinyaradeedu guray wada joogaan suuqa marka loo baxo way kala baxaan ciyaalku iskuul bay tagaan dadka waaweyne shaqo iyo xafiisyay tagaan dumarku guri bay joogaan waa la kala baxaa suuqa waa kala suuq laakiin meesha intuba isugu yimaadaan iskaga warhayaan ee afkaarta isku weydaarsadaan ee wax ku noqdaan waa guriga dumarkii jooga raggii jooga carruurtii joogta cid waliba joogta ولذلك أيها الإخوة تحديك أما challengeska reerka haysta ka khaarijiga iyo ka dakhiliga ama markaynu isku darro oo dhibta ugu badan ay ku salaysantay imma al-jahlu wa imma at-takhwif wa at-tajwi'u wal-'unf jahli inaga haysta diinteeni iyo waxa inagu xeera jahli inaga haysta waxa la inoo soo waaridee la inoo dhigayo ee kontonka la kabe ka u sareeyana aad arkayso inta kalena aan arkaynin waxa la inoo soo waaridayay lacagta lagu wado inaad dhageysato $10 la isku siyaaso ma ahayn jooyada waa inaad ka qayb gasho soo dhageysato ayaad maalintii yoomiyana $10 baad leedahay $10 caqligaaga aad ku iibsatay ogsanow $10 bilaash ma hawo toban wax lagu sheegayo waa toban afkaar iyo dana laga dhaadhacsanay waa toban bilaadku wax u kala iibsadaa dadkani waxay barteen afkaarta sida loo suuq geeyo suuqeyntu ma hawan ku dilaya wala inaga leh hadana raaci weyda way dilaya saacid isku raacda dunida dad raaci weyda ku dilaya ku raaciso laakiin mabaadi'da iyo diimaha iyo afkaarta iyo waxa binaadamku haysto wala suuq geeya way suuq geysteen koodi way ka gateen adigoo ordaya tagayo leh waxa ka gaadhaya meel yar halkeero maanta ku leeyahay baa ka gaadhaya adiga maalin kasta project qorayo leh project guurka fircauniga ama xuquuqda dumarka ama xuquuqda carruurta ama xuquuqda waxan ka waramaya wada hada project waranaya waayo loo fangareynaya idan imma jahl inuu wado imma tazyin iyo waxaan leeyahay daldalaaliyay lagu wado xagga guriga la inaga wado iyo mararka qaarkood in la isuba hanjabayo oo dawladaha qaarkood ضعفي daraadood waxay arkayaan baanay diidi karin waayo wax la oranayaa xuquuqda bini'aadamka ku xadgudubteen haddaad waxa sameeysan cuna qabatay marka sanadkii dhamaaya madaxda sida miskiinka isnabaya waayo qaanuun dawli waa isaga lagu qaadaya waxay taagantahay hadda oo United Nations musawada maxkamada jinaa'iya talyaaniga markay 98 ku shirayeen ma filayanaytay waxa la horgeeyay in xeerka xuquuqda bini'aadamka lagu gudbay sooyinka maxkamad lama sameeyeen hadii goor Afrikaanka la saaro madaxda Afrikaanka baa la saaray dameed maqashay kale la saaray yeen yaro balkanisa maxkamadaasi dunida la sheegayo waxa dadka lagu saaraa bini'aadamnimada ku xadgudbeen waxa la rabaa in lagu daro bini'aadamnimada xadgudubkeedu wadan kasta oo leh sharci ciqaaba ragga u tagaa dumarka u tagaa doodaaba hadda socota oo wadankii aqbali waayo madaxdiisa hadda weyn loo waarida maxay lahay baa la geeyay waayo xuquuqda jinsiga ee bini'aadamka cunsuri ku noqotay dad xadgudubta idan ayuha al-ahibba بدائش إنه ربنا إنه السمينا وهرين إلهي وحين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي وحين لي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إلهي وحين لي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء إلهي وحين لي إن ألمد نغطان بيدوريا هذا إنه مرة إن ألمد نغطان
wixii waxtaraha waxaan waxtarayn maya waan rabnaa inaan Maraykan iyo Yurub kala mid noqonno technology-ga iyo lacagta iyo horumarka inaan kala mid noqonno waan rabnaa bale inaan wax dheeraano ma rabno khasiisnimada iyo foolxumada iyo guri la'aanta iyo nidaam xumada inaan kala mid noqonno laakiin iyagu cagsiga inaga rabaan iyana waxay ku leeyihiin technology-gu maya haddaad nuclear-ka samaysato halkaasee lagugu dhigaya maba dhici karto annagu unbaa mas-uuliyadda qaadi karna idinku dad yaryar aan caqligoodu badnayn oo mas-uuliyadda nuclear-ka aan xambaari karin baa tihi walidalik kuwa waaweyn unbaa mas-uuliyadda ahayn kara hubka wax gumaada hubka horumara hubka caynkana waxaa ma samaysan karti technology-ga cidi kuu soo waaridi mayso laakiin waxa aan wax tarin wax allaaliya waxa aan wax tarin waa laguu soo waaridaya inana waxaan leenahay war xagga kale u dhiga iyana waxay leeyihin may xaggan baan u dhigaynaa iyagu waxay leeyihin waxa faa'iidada leh xaggay joogayaan waxa kalena nagala mid noqda innaguna waxaan leenahay quri waxa weeyaan war isweydaariye kan idinba ku jabtay ee naga daaya idinba waa ku jabteen ee naga daayo xagga u dhigo waxa faa'iidada leh xagga kale soo mariya haddaba waa walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum waxaynu u baahanay markaa taxaddi guriga haysta marka aan soo koobo warkiisu waxa weeyaan gurigu waa meesha qura ee sharci islaameed ku hadhay dunida alaxwaal shakhsiya dowladaha muslimkiina ay inta badan sharci kaga dhaqmaan intaa haddii laynaga saaro war diin waxba kama soo hadhin salaada masaajidkaa soo hadhaysa haddii intaasi baabaado waxba ma soo hadhin walidalik ka umma waa inaynu mowqif ka lahaanaa maxaa xuquuq dumara maxaan xuquuq dumar ahayn maxaa xuquuq raga maxaan xuquuq rag ahayn maxaa xuquuq caruureeda maxaan alcunfi lusari baa lagu leeyahay dabeetana waa maxay cunfiga usariga lagu sheegaya waxay ku leeyihiin islaantaad ku xadgudubta haddaba waa ninka islaantiisii u tegay baa waxaa la qorayaa waa raydkay ka mid tahay waxay ka mid tahay kufsiga islaanta ku yara diidida baad u tagtaa kule waa kufsi xeerka kufsigaa lagu qaaday marka caalamku halkaasuu maraya waxaynu u baahannahay markaa inaynu diinteennu mawaaqifta istaagtay waxaas oo dhanna godolooladeenna keenta haddaynan inagu godoloolada lahayn cidi inagama soo gasheen innagaa xaqa carruurta ku gudbaynaa ka dumarka ku gudbaynaa kan ku gudbaynaa waxaan o dhan samaynaynaa waxaynu u baahannahay intaynu diinteenna fahamno dowlad iyo bulsho iyo mujtamacba inaynu iyada ku dhaqanno ilaahay baana xuquuqda inoo qaybiyey xuquuqdani mid rag qaybiyey maaha mid dumar qaybiyeyna maa mid carruuree qaybisayna maaha waa xuquuq rabbigiina wada abuurtay mid walba uu xaq siiyey qaabna uu yidhi u noolaada qaabkaasina inagu filan walidalik waxaan ku soo koobaya markaa taxadiyaadka guriga haysta way tiro badan yihiin wax muxaadaro iyo laba lagu soo koobi kara maaha waayo gurigu bulshadoo dhan buu matalaa dadkii waaweynaa dadkii yarnaa carruurtii dumarkii bulshadoo dhan buu matalaa bulshada waxa dhib ka jiro o dhami guriga uu soo gaadhay waxaynu u baahnay markaa inaynu islaamka dib ugu noqonno dad muslimiin oo dhabana noqonno afkaartan iyo waxaan la sheegaya kale reer galbeedna inaynu ka tallaabsanno inta khayrka ay haystaanna inaynu u xaydano saynu helno asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu